martiqaadka madaxweynuhu noo fidiyey runtii waanu ku mahadsanyahay waxaan u rajaynayaa shirkana guul iyo isfaham sida la sheegay oo saaxiibada igu horeeyay sheegeen Soomaaliya dhibaatooyin badan ay ku jirtaa dhibaatooyinkaas oo kuwa dawladdiidka ay maalin walba ay dadka qarxinayaan ayaguna is haligayaan dadkuna ay haligayaan marka kuwa ayagana is haligayo annagana haligayo oo nafidnay oo dhibaateeyay inaan meel looga soo wada jeesto oo waxaan u rajaynayaa shirkan inay ka soo baxdo wax kuwa ayaga lagu ciribtiro ee ummadda Soomaaliyeed ay u aaydo inuu ka soo baxo shirkan u rajaynaa dadka Soomaaliyeed waa la dhibaatooyay oo magaalo u gudbi karto ma jirto degmo u gudbi karto ma jirto tuulo u gudbi karto ma jirto gaar ahaan aniga koonfur galbeed gobolka aniga aan ka imid saas darteed waxaan rajaynaa ummaddaas waxay naga sugaysaa in jidadkana loo furo ay isku socdaan oo sida bani aadamka ku noolaan jiray ay ku noolaadaan ay naga sugayaan taas annagana waxaan ka sugaynaa dawladda Soomaaliyeed iyo caalamka ee kaashanayso oo annagana aan garbaheeda nahay in arrinka laga fikira oo kaas noqdo ummadan cidii maanta ay aadayso baydhabo inay diyaarad raacdo iyadoo jidkaan arkaysan mari karin runtii waxaan u aragnaa wax nasiib darro sanooyin badan aan lagu jiraa arrinta ayada wiilal yar oo qoryaha ka haysta jidka dadku diiday marka aniga in laga leexin kara aaminsanahay marka sida looga leexin lahaa meel kasto jidka lagu furi lahaa dadkaan oo dhamaantood diyaarada saaran oo anaga dawladda Soomaaliyeed iyo maamulada baan markaan fiiriyay anaga hawadan haysanaa dhulkeena waxaan hagaajistay shabaab marka sida aan dhulka ku qabsan lahayn inaan ka fikirno oo sida dhabta oo wax in laga hadlo u baahan maanta soo horumar aan laga fikiri karin wax kale oo laga fikiri karnaa jirin ilaa ay taal helo marka dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaa iyadoo caalamka la kaashanayso annagana aan ballan qaadayno garbeedanahay inuu shirkan u noqdo shirkii arrinta ayada ka soo bixi lahayd dadka Soomaaliyeed waa shaqaysan laayeen anaga dadkayga beeraley iyo xoolo waaye beerihii waa la tacbi laayahay xoolihii waa la tacbi waa la dhaqan laayahay waxa loo soo dhigtay ilmahoodii kii 9 sano jir in laga qaado hadda magaalooyinka hadda anaga aan joogno dad badan oo waxa arkaysa ilmihii la soo qaxay marka dadka Soomaaliyeed shalay waa la siray diin iyo waxba loogu soo dhuuntay alxamdulillah maanta way fahmeen inaysan wax kan ay diin ahayn maalmihii dhawaatuntii dhibaatadii dhacday aad aan ugu xunnahay intii ku dhumatay Allah naxariiso intii ku dhaawantay Allah caafiyo laakiin dadka Soomaaliyeed dareenkooda banaanka ay soo dhigeen awal shirarka ay ka cabsan jireen shabaabku ay ka cabsan jireen ayagoo ka cabsanayna magaalo walba inta soo baxeen ayagoo caaynahay oo leh dulli wayle ay soo baxeen marka in looga faa'iideeyo dadka arrintaas maanta taagan ayagoo dhan u diyaarsan marka aad u mahadsantihiin ana waxaan kulli dhihi lahaa madaxweynaha iskale laakiin waxaan dhihi lahaa wax walba inaan ka hormarino sidaan amniga u qaban lahayn waan mahadsantihiin salaam alaykum